بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا موغال الصب waxaan ka codsanayaa muuqaalkan hadduu ku soo gaaro inaad page-ka subscribe ii tiraadid oo asxaabtaadana aad sii gaarsiisid mar kale waxaan ku leeyahay ku soo dhawow gacmo furan caawaana firdabaxayaa wax aan reebanayana malaha waan firdabaxayaa caaw sababtoo ah mar haddii dhiiggaaga iyo dhacaankaaga ayadoo lagu tumanayo aad arkayso oo haddana dadka ku tumanayna ay yihiin abtiga adeerka walaalka mad kula dhiigga ah oo dhiiggaaga iyo dhacaankaaga dhulka hadduu ku dhacna ku hortaagan kuleh ninkan waa walaalkay oo dhiiggaaga iyo dhacaankaaga kula qaybsanaya oo haddana markii uu maaragtay aad meed noqoto oo maaragtay aad waddada aad dheh taalana uu kaa dhaqaajinayo markii adig aad nooshahayna uu walaalkaa yahay oo laga yaabe maaragtay markii aad wax qaybsanaysaan lagu yaabe inuu tolka kugu kiciyo ku yiraahdo ninkan waa ehelkay waa qaraabadayda oo meel laga mari karin oo haddana isku sheega markaas kadib in ay yihiin mad kula dhashay walaalka ah oo dhiigga iyo dhacaanka kula jaqaya oo isku sheegay inay yihiin hogaamiyaasha ummadda oo haddana ay yihiin dhammaantood wada tuugo oo ilaahay iyo rasuulkiisa ka furtay dhammaantood wada kaafiriin yihiin oo ilaahay iyo rasuulkiisa ka wada furteen markaas kadib intay bannaan cad intay soo istaageen ay leeyihiin haddana annakaa madax annakaa idin hogaamina ya war wixii shalay ilaa iyo daraad iyo maanta ka dhexdhacay askar markii hore lagu sheegay inay yihiin askar qaran wiilashii intii nin kasta arigiisii oo geel laga soo kaxeeyey oo layidhi waxbarashaa lidin siinaya oo firiya oo markay waxbaratiina waa shaqaysanaysiin layidhi qof kastoo intuu afduub lagu kaxeeyey magaalo iyo maaragtay waddamo gaala intuu xoog lagu geeyey la tababaray markii dalkooda lagu soo celiyey iyadoo caruurtooda hooyadoodii aabbahooda waalidkooda arag intii xub lagu siiyey xoog lagu siiyey oo lagu shibay maaragtay furmaha dagaalka lagu shibay oo haddana markii furmaha dagaalka lagu shibay oo haddana aan la siin wixii ay isku badbaadin lahaayeen hadday saad ciidan noqon lahayd iyo hadday maaragtay raashin noqon lahayd haddii wixii roobkay ka gaban lahaayeen iyo haddii wax kasta isku difaaci lahayn aan la siin antii bannaan cad antii maalin caddee la daadiyey laga dhaqaajiyey ya ilaahay baa idinku dhaariyey ma ninkuu naxayba ninkaa makuu naxariistay makuu naxa ninkaas ya war halkan laba arrimood oo midba kale ka sii daran tahay ayaan rabaa halkan inaadan kala wadaago oo maaragtay aan idinkala sheergareeyo wixii fikirkayga ah shalay ilaa iyo maantay ninkaas sawirkiisa meesha ka muuqda oo halkan ku dheggan waa la wada garanayaa waa nin ka madaxaan jiray askartii mase taliyaashii mase abaanduuliyaashii mase sarkaaladii soo maray dowladdii hore ninkan ceed ma saarayo oo hadda maaragtay dowladda hadda jirta maxaad ugu maqaneed boqolaal asaga lamadaa dowladda ka maqan oo loo baahnaa in khibrado laga qaato oo loo baahnaa maantay khibrado dagaal meesha loogu tegayo mase meesha laga qaybgelayo dagaal habka laga marayo dhinaca loo gelayo waa dadkii la weydiin lahaa asigaa ka mada boqolaal qofaa jirto maaragtay maanta laga danaystay ninka hadalkiisa waxaa ku jirta 4 arrimood mase 4 kelmadood ilaahay baan ku dhaariyey hadda haddaan idin maqashiyo horeyn waad u maqasheena oo maanta shacab haddii la yahay iyo hadday dowlad lihaba dhammaantooda wajagabaxa dadka ku yihiin ya erayga koowaad ugu xanuunka badan uu yahay anigoo jirkayga ku waayey oo handhahayga ku waayey oo ku naafoowey in aan maantay ku dhex tuugsado may qabataa
إلهي بعدين كوداري وهذا الكسامين بدنيا ترى يا هذا الكلابات وننكا وكل واجي وحكم ذا إنه يري dalkiyan antaan u dhintay mase loo baaba'ay dhibaatada loo maray inuu maanta qabiil loo kala jaray oo madaxweyne qabiil ka taliyo ma ii qabataa arrinka saddexaad uu ka dhawaajiyay waxaa ka mid ah inuu leeyahay saldhig kasto gobol ha ku yaalay mase caasimad ha ku yaalay ciidanka hoyaalay mase ciidanka xariyahaas ku jiri aniga hogaaminayay إلهي بعدين كوداري إلهي بعدين كوداري ما أنت سده لو قال عيدك سده لو قال ورسده لو قال ما أنت عيدك سده لو قال كورن عيدن قبل هجوجي مس عاصمة هجوجي عمر كيسادي حل مل مس حل قبل مس حل حفيز هدو عمر كيس كفر يجري كور ما أنت متعي معها أرنك عفرات وحو يهي إن maantay ninkan sidaani ah oo khibradaani leh oo khibrad intaa leh uu soo maray in maantay xataa abaalmarin in la siiyo iska dhaafe xitaa aan la dhihin maadaama intaa soo shaqaysay waa $300 maanta mashaarka qofka magaalada muqdisho uu ka shaqeeyo mashaarka ugu yar uu ku shaqeeyo way xataa aan la dhihin $300 baan ku siinay qaado xataa aan la dhihin aan lagu abaalgudin يا نينكاني أو كلمانتي دونده حقو كجرا ما تقاني نينكاني أو كل دونده مركل تشوجو مسا خبرة دجال مركل تشوجو مسا عسكرت مركل له تشوجو نينكان حقو كجرا كان أكل عيدن كدونده حقو كجرا ما تقاني نينكاني أكل عيدن ك مسا دولدو مسا عسكرت مسا عيدن كنينكاني أكل وحقو كجرا ماشي عندها نصات كي عيدن ك يا سادك عيدن كماشي اللي يرادو دونده markii la joogo ninka saadka ciidanka waaba ka qaalisan yahay sababtoo ah waa ninka kaliya khibrada laga qaato dagaalka ma qayb qaato xafiis buu dhaaf fadhiyaa waa shaqo joojin buu haystaa shaqo fadhiis baa lagu sameeyay lacagta soo qaataa laakiin khibrad kasto ciidanku ku shaqo galayo waa ninka laga qaato waa khibrad kasto ciidanku howlgalo mase ku shaqo galo waa khibrada laga qaato waa ninkaani oo kale sababtoo ah askarta ciidanka hogaamiya mase ciidanka maamula waa ninka kaliya ay la fadhiistaan ay khibrad ka qaataan markay khibrad ka qaataan markaas kadib askarta ku laabtaan ay khibrad la soo siiyay mase shahada dagaalka la soo siiyay ay ku duulan tagaan oo ay weerar ku qaadaan oo ay ku dagaal galaan waay oo waliba waxa ay yar antaa la ciidankaas hadii ka qaldamaan mase ka qaldamo waa dadka kaliya xisaabtama oo xisaabta ku dara madaxweyne meesha soo gali ra'iisul wasaar oo cid askartaasi mar kasto waxa dhacaan waa dadka lagu la xisaabtamo oo wax kasto dhaco oo lagu la xisaabtama warkaada ku daalin ninkan hadalkiisa asigoo dhameystiran baan siinaya xafaaf ma jiro asigoo dhameystiran sababtoo ah hadal ninka ku hadlayo dhammaantooda markii aad fiiriso waxaad ogaanaysaa mas aad garanaysaa Soomaaliya waxa la yiraahdo dhammaan inaysan jirin oo ay tahay bahal galeeno inay tahay sababtoo ah meeshii lagu yiri ciidan gobol ha joogay mase caasimad ha joogay meel kastuu ku sugan yahay aniga ayaa hogaamin jiray oo amarkiisa hal meel baa laga fulin jiray ilaahay baadan ku dhaaray ciidan sidaas isku duuba maanta ma haysin ma jirto guuto kasto maanta meel lagu ooday nafteeda halis ugu jirta maalinkii Xasan Sheekh Maxamuud Hilka loo doortay kumanaan kun oo askari baradaha lagu laayay barxadahan baa lagu laayay 24 sano waxay la taagan yihiin nijaasta waxay la taagan yihiin al-shabaab 100 laga dilay al-shabaab 50 laga dilay hada watan nimanka markii wiilasha markay dhameeyaan 24 sano baraha bulshada soo dhigaan tuugadana ma soo bandhigaan war dadka wax aad dishaan hagaagaysi maana anta karsatiin ma dabka saaratiin ilaahay baa idin beel ilaahay hadan kariye ninka muuqaalkiisa oo dhameystiran bal aydan siiyo
bal haddii aad ka heli kartaan waxa maartay oo khibrad dagaal ah haddaad ka heli kartiinba war aan siiyo magacaygu waxaa la dhahay Jalaal Cabdi Isaaq Ibraahim Weelfurad waa jadankii taliyihii daraawiishta Soomaaliya dhan baa ahay 16 gobol 75 degmo aniga waxaa ka dhaxlay aabbahay dhaxaltooya ku qaatay garaadada aabbahay waxaa ahay taliyihii ciidamada Soomaali booliska Tuumo markii asuu 60kii dhintay baa anigu waddanka la wareegay oo taliye ciidan booliis noqday oo daraawiishta waxaa ku helay mid dhaxaltooya ku helay aabbahay ka dhaxlay midna anigaa shaqaysaday dagaalkii subankii baa ka qayb galay garaadada u badiin saasaa horta ku qaatay xaalkii jiraa kaas boolis lahaani mana ma noqonin anigu waxaa la qoray 70 baalkii waxaa la qoray 60kii bishii shanaad aabbay dhintay xidigtii koowaad kabtan baa ka bilaabay garaadada aabbaha ka qaatay ku dhahay marka dadka ku daawanayo in garaadada laga bilaabo kabtan wax furan ma ahayd barigaas ها dhaxaltooy waay بليس هاي dhaxaltooy waay saldhigan waa bari nooga sheekay saldhiga waa bari saldhiga hodon saldhiga holwadaag kan waa dhiigley kan maartay baalkii cumaay saldhig shatara waxdan saldhigadan dhismadooda aniga mas'uul ka ahay aniga saraakiil kaleeto oo boliiska ah anu saldhigaan iska wax u qabso laguma dhisin anu ka dhisaday macal isbitaal madiina macal maash hadda see biyaanay dabdamiska anu ka dhisaday shacab ma dhisin ma maqash iska wax u qabso laguma dhisin booliska dhisaday goorma saldhigaa waa laga horeeyey qaar waxaa la dhisay 60kii la dhisay qaar antal boola dhistay qaar waxaa dhisay antal bool la dhistay xariirka boliiska adduunka maxaa kuugu farxad badnaay waxay ugu farxad badnaay markii aniga harar iyo hawaas tegay oo Itoobiya salkeedii tegay baa farxaddayda ahayd markii soo noqdayna guuldaro ay soo raacay waayo abka ajnabi abka carab gaal iyo mullow anaa igu soo jeesadeen macruush siduu u dhacay dagaalkaas noo sheekay si u dhacay dagaalka horta qisad siyaad barwata ahayd oo heerseediyaashiis baa maartay Itoobiya haysatay mogtahay inuu u dagaalamna ahayd markaan calaa kulli xaal markii dambe waan isfahmay markii Itoobiya qabanay baa maartay ka baxaydii waa anunkii asdagaalnay dhaxdaanii asdagaalnay saraakiishii sidaagu soo baxay Soomaali dhan ciidankii joogi 75 degmo 16 gobol ciidankii ka dagaalgalay oo daraawiishta anaa xukumay aniga tali u ahay ciidamada daraawiishta boliiska la soco haddana maanta calaf daro in anigoo intaan Soomaali soo halgamay oo xibnayga kala maqan yihiin maantana qabiil ka taliyo oo dad madaxweyne qabiil waayo ma maqash oo anaana ka tuugsado ma maqash waxa uu arkay dhibaato weyn ma maqash inii jab aniga maanta niyadeydu waa jaban tahay Soomaali oo xalaal ma hadda markab Turkiya soo fadhiisay badda koonfur galbeed waxaa soo fadhiisay ciidamo Itoobiyaan buntland Itoobiyaan soo fadhiisay baalkii Jubbaland Itoobiyaan soo fadhiisay Soomaaliland Itoobiyaan soo fadhiisay marka wax waayo dhulkii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed gacanaha ku jiraane Soomaaliya tashada waxay igu nax badan ma maqash wiil 20 jir horteedii lagu dilay gabar Soomaaliyeed la gubi oo dab lagu shiday taasay igu naxdo badan ma noola wax nool kuma jiraan wax waayo Soomaali wax waayo afar dhibac ishan waayo dowlad Soomaaliyeed maaha waa qabiil aniga maartay u raadsan maayo arrin iyo maartay wada shaqayn u raadsan maayo dowlad adiga hadii la hadlayso wax ku dhimaynin oo ubadka dambe wax u dhimaynin taas rabaa aniga dowladnimo hadda waa ka baxay 85 baa jira waa kan inta nabaray إيش الوطن حبب فريرة كله هي كريال لما هيست مايا دليل يا كنا قبيل واحد تيجوا قاري وحاس ودقال كي مركز سعودي واي
سبب آه. قال لي كنا وعمت مكان وقلب دهنه مريكا قال لي غادي واجيدي مريكا قال لي جاي نقص هذا قولي ده واجيدي ما قول شيء ما هو الحمد لله ودك هيك ما جوجيو وحنا كمان ما wax aan ka raba ma leh waddankayga ma joogayo alxamdulilah 4.5 waxaan dowlad maha qabiil waay ilaahay baa idinku dhaariyey wallaahi kor mararka qaar waxa ku qabata war dab miis ku qabata ilaahay baa wallaahi billaahi watallaah ninkaan hadalkiisa maanta ugu yaraan 4 jeer waa dhageystay بالله عليكم والله مرك قار وحي قبطنيو دب ميسكو قبطا ميسكا دمتا با إلهي بادن كداري كورن عيدن قبل ولا عاصمت جوغ نيكي حال قف حقامية كورن او عمر كيس حال ميل كبهو او عمر مان تهدي لغسي إثيوبيا دق حال وقب تهدي ليرادو او عيدن حال عمر هايستا ات قبنت اسنجرين ماشي كدوان اي بابعيا ما انت محانو مرينا ما انتو محانو مرينا madaxweynaha ra'iisul wasaaraha golaha shacabka taliska ciidanka baarlamaanka aqalka sare dhammaan wada tuugo waay hal qof oo maanta shaarkiisu uu maartay nadiif yahay kuma jiro ya maamul goboleed matir maanta maxaynu maraynaa ilaahay baa idin ku dhaariyay dhammaan wada tuugo intay ka baxeen ka bilow madaxweyne ilaa taliska ugu hooseeya dhammaan wada tuugo waay hal qof oo shaarkiis madow kuma jiro sababtoo ah ka bilow maanta maxaa dhacay war ciidankii difaaci qaranka la dhahay oo dal dhan hogaaminayay bay maanta waxay quudanayeen mase wixii raashin ahaan loo sii rabay mase loogu talagalay dunida ugu deeqday baa isbaaro loo dhigtay asaadeed lama siin karo halkaasay maanta marayna ya war dadkaani oo kala ninkaani oo kala waa waxa loo baahanaa dawladdu intay shir qabato mase warbaahin qabato ay tiraado dadkii dawladda ka qayb gali jiray dawladdii hore dadkii maanta khibrada hay waa in la helaa dadkaas meeshii la rabay dhammaan maanta waxaan gacanta ugu jirnaa tuugo ilaahay baadan ku dhaariyay ninkan hadalkiisa maanta ugu yaraan 4 jeer waa dhageystay warniyo dab ma isku qabataa sidaadab adina maska tagtaa sababtoo ah hadalka ninkan qaybta ugu dambaysa waliba waxan waa qabiilayaan ka raasinayaa yaa maartay xuquuq ka raadinaya ya 4.5 baa maanta Soomaaliya lagu dhisay qabiil baa la dhahaa madaxweyne waa qabiil xagee waa laga helayaa dalkayga hadaan joogo caafimaadka iimaankay waa qaba hadda waa asiga oo tuugsada waya oo dadka waxa ka raadiya Allah noo gargaar tanna ma noo dambays Allah tuugadan gacantooda naga badbaad nacala sheedaanku yaale gaarsi tuugada xafisada ku jirto wada tayga wadato tuugada ah xafisa ku jirta gaarsi لا إله إلا الله محمد رسول الله ورتوق ذا قيسي منافقين تنجاز تماشى ضوبن قارسية ورقارسية داد كان خبرد الهالرادي هلا كان داد كان خبرد الرادية كان إلهي عذابي يا مصر نقهر لهذا ورنقهر لهذا